raid warbixinta ka bixinayo wuxuu ku salaysan yahay arrin media ku jiray oo aan anagu waxba ka sheegin markii hore oo ahaa xogaa muran soo kala dhex galay ganacsatada reer Somaliland iyo shirkadda DP World iyo go'aan ka soo baxay oo ay wasaaradda ganacsiguna taageertay ayaa aanu baryahan ku hawlanayn hawshaasi waxay keentay in muddo 5 cisho ah ay taagnaato dhaqdhaqaaqii ama shaqadii ka socday dekadda Berbera oo aan ganacsatadu waxba kala soo bixin arrintaa markii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo socdaal shaqo sida ogeedeen ugu maqnaa Imaaraadka uu yimid oo maqlay codsiga iyagii ahaa inaanu la kulanno runtii isla markii warkaygu gaadhayba waa naga aqbalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shir buu noo qabtay runtii waqti badan baan isku qaadanay si wanaagsan oo sidii dhaqanka inoo hayda oo saraaxiya oo midaanu gees u wada jeedno ayaanu ku wada hadalay arrinkii aan isugu tagnay shaqadiina saaka waa bilaabantay oo waa furantay waxaanaanu ka wada hadalay qodobada koow DP World oo ka cabatay sarifka hoos u dhaca ku yimaada marka ay lacagta Somaliland naga qaadaan iyagu dib ugu baahay doolarkii ugu bedeshaan ku dhacay oo ay ka cawdeen waa ka heshiinay laba waji bay ahayd wajiga hore oo ku bilaabmayay bishan muxuu ahaa March 12keeda in lagu daro 1500 iyo wajiga labaad oo inuu June 12keeda kalena 1500 oo kale lagu daro cawashadayadii madaxweynuhu uu tixgeliyay waxa uu ka saaray taa dambe 1500 ee hore kordhiskii uu noo soo jeediyay annaguna waanu aqoon khilaafkii wiigan dhex jiray annaga iyo xukuumadda ama DP World si caafimaad qabta oo wanaagsan buu noogu dhamaaday oo aan ugu mahadnaqayno madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaanba wasiiradii nagala shaqeeyay geesa kalena waxa uu ka hadlay qodobo kale oo ay isla soo qaadeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ku saabsan dhinaca kala xadeynta ganacsiga iyo sidoo kale cashuuraha laga qaado ganacsiyada dalka Jamhuuriyadda Somaliland talisamadana wasaaradda maaliyadda ayaa dhexdhexaadisay wasaaradda ganacsiga iyo dawladda hoose iyagana wixii ay isku afkarteen intii ka qabiyahaydna waxa loo saaray gariiqaanka guud oo sharciga u baaraya taana waxaanu ku heshiinay inta ay hawshaasi dhamaanayso ay kala raacayso wixii lagu muransan yahay inay naga yar hakiyaan hadidaadda ama askarta la socota cashuurayaasha